بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan walaalaha ku soo dhawaada barnaamijyadii aan horay u cilaaminay oo dhan oo halkan ogeysiiska ka bixinay dhamaantood waanu bilownay duruustii kala gadisnayd cashirkan hadda aanu bilaabayno wuxuu ku saabsan yahay kitaabkii aan horay u cilaaminay ee lagu soo kulmiyay ducooyinka mustajaabada ah ee qofka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryo laga ajiibayo kuwaas oo waxa weeyaan hal meel ah la isugu keenay wada saxiixna ah oo waxa weeyaan ayaa lagu soo kulmiyay kitaabkaas horaan kitaabkeedu kugu soo gudbiyay cid ku soo dhawaada waxaanu bilaabaynaa wax loo yaqaano kitaabka hordhiciisa ayaanu bilaabaynaa fadlu ducaa ducada iyo faa'iidada ay leedahay fadliga ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaan adoomo u nahay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii suubane haddii ay ku weydiiyaan addoommadaydu cibaadii ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaan addoommo u nahay canii aniga xaggayga hadday wax kaa weydiiyaan fa inii anigu qariibun mid u dhow ayaan ahay waa u dhowahay kama dheeri ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waana ka aqbalaa qofka i baryo baryadiisa waan aqbalaa falyastajiibuu lii ha i ajiibeeno warkayga ha maqleen amarkaygana ha qaateen lii aniga waliyu'minuu bi hana i rumeeyeeno oo allah subxaanahu wa tacaala allihii ku abuurtay cibaadada khaaska u ah wax walba oo maaragtay uu asaga gaar la yahay inaad gaar oga dhigto sidaas haddaad samayso la imaado lacallahum yarshuduun markaas waxay mudan yihiin in ay hanuunaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii nebi maxamedow hadday ku su-aalaan addoommadayda cibaadii ayuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala asaga ayaa waxa weeyaan ayaan addoommo u nahay marka cibaadii addoommadayda haddii ay ku weydiiyaan canii aniga xaggayga fa inii anigu qariibun mid u dhow ayaan ahay kama dheeri kama fogi waa u dhowahay ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waxaan aqbalaa oon ajiibaa qofka i barya qalbi wanaagsan igu barya waa ka ajiibaa idaa goortii dacaani uu i baryayo falyastajiibuu lii hay maqleen warkaygana ha yeeleen waliyu'minuu bi hana i rumeeyeen lacallahum yarshuduuna waxay mudan yihiin in ay hanuunaan oo wixii markaas ay ilaahay iga baryayeen inay helaan hidaayada iyo maaragta ilaahay subxaanahu wa tacaala aan usoo dejiyo wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu leeyahay udcuunii ibarya astajib lakum aan idinka aqbale ibarya baryadu marka adiga ayaa u baahan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisu hani buu ka yahay annaga ayaa fuqara u ah oo u baahan marka ilaahay subxana wa tacala markaan barino wixii aan ka barinay waa uu noo ballan qaaday in aan helayno wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed sal alayh wasalam wuxuu ina leeyahay oo inoo sheegayaa na barayaa lan yanfac min qadrin walakin adducaa yanfacu mima nazl wa mima lam yanzil facalaykum biاdducaa cibaad allah ducadu nabi maxamed sal alay waslam wuxuuna leeyahay lan yanfacu min qadr qadarta waxa weye wax anfacayaay oo reebi karo ma jiraan laakiin ducada ayaa waxa weeyaan anfacaysa oo reebayso mima nazal wixii horay usoo degay oo ku hayay hadduu xanuun ku hayay haddii dhibaato kale ku haysatay wixii horay kuu asiibay ducada ayaa kaa faydaysa oo kaa reebayso ilaahayga aada bariday ilaahay waxaan iga qaad ducadan iga qaad ilahay dhibaatadan iga qaad ilaahay qofkan xasid buu yahay iga qabo yacni wax kasta ilahay oo jannaan ku weydiistay wax kasta oo wanaagsan oo ilaahay aada weydiisatid waxa weeyaan waad ka helaysaa wa mima lam yanzil wax kasta oonan weli soo deginna ilahay waa kaaga difaacaya shar oo dhan buu ilahay kaaga difaacaya
facalaykum biducaa cibaad allah ayuu leeyahay nabi maxamed sal allahu alayh wasalam addoomadii ilaahayow ducada hala badiyo. qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ina allaha tacaala ilaahay sareeye xayun waa mid nool oo kariim ah yastaxyii wuxuu ka xishoodaa idaa rafaca arajulu ilayhi yadayh haddii qofku uu gacmaha u taagto xaggiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu soo celiyo ayagoo sifra ayagoo maran oo sidoodii ah inuu soo celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu ka xishoodaa khaa'ibiin ayagoo maaragtay dulaysan. haddii allah subxaanahu wa tacaala ducadii iyo shuruudaheedii intaad soo oofiso si toosa ilaahay subxaana wa tacala aad u barido ilaahay ducada ayada a kuguma qadinayo waa uu kaa aqbalayaa. bal aan eegno haddana xadiiskan ka hooseeya. xadiiskani faa'iido aada u fara badan buu leeyahay. dad badan oo maanta ilaahay baryaya ducadiina aanan helin sababo jira awgood ayaan halkan ku ogaan doonaa waxyaabahana looga baahan yahay iyo xaalkeena siduu yahay. wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabi maxamed sal allahu alay wasalam wuxuu yihi udcu llaaha ilaahay barya wa antum muuqinuuna bilijaaba adinkoo yaqiinsanayo rumaysan iimaansan in la idinka aqbalayo ducadaas. halkaas maxaa la diidayaa inaad iska ducaysato un ama ha laga aqbalo ama yaan laga aqbalin iska ducayso lama ogola. waa inaad guarantee ilaahay xaggiisa aad ka ictiqaadiso wax wanaagsan xaggiisa inay kaaga imaadaan inaad ictiqaadiso. waclamuu ogaada ana allaha ilaahay laa yastajiibu min qalbin gaafil ogaada ilaahay ma aqbalo waxna kama aqbalo qalbi gaafil ah gaafilun can dikri illaah qof ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisaba gaafil ka ah xitaa markuu duceysanayo waa gaafil xitaa markuu duceysanayo waa gaafilo maba ogaba yani xaaladda uu ku jiro meelo kaleu ka fikiraya dukaankiibuu ka dhex taagan yahay xisaabaadkiibuu ku jiraa ilaahayna waa baryayaa salaad baa laga yaabaa inuu taagan yahay qalbi markaa gaafil ah weyaan qalbi yani macaasi ku dhex jira weyaan qalbiga noocaas oo kale ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kama aqbalayo. waxaa loo bahan yahay markaad ilaahay baryaysid qalbigaaga inaad soo xaadirisid jirkaaga inuu noqdo jir hal dhinac ah u wada jihaysan 2 ragcadood sunna aad tukatid shuruudihii aad martid ducada lagaaga aqbali lahaa waxyaalaha xaaraanta oo dhan aad ka dheeraatid xumaanta oo dhan aad ka dheeraatid aad noqotid qof markaas asagu isa soo hagaajiyey ilaahay si toos hadaad u baradid waa uu ka aqbalayaa. marka cashiradu way socdaan waa hordhici iyo faa'iidadii fadliga ay lahayd ayuu darsigeenan ku saabsan yahay maanta. wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu. qofkii kitaabka haysto halkaa wuu kala socon karaa haddii kale kitaab uma baahnidin cashiradii halkaan ayaan idinkugu soo qorayaa. aad baad umahadsantihiin wabillahi towfiiq.